السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. isku soo laabasho wanaagsan saaxiibayaal, kuna soo dhawaada qaybtii labaad sheekaalgameeda dareemin geerida. wiilkii sarmaha wajiga ku lahaa ee bakoorada la daba taagnaa wakaa la jeeday sidii goosan weergalay. nimay nafihaysa bakoorad baa majiir wayba la tahay garaad xumadiisa. hees baa odhan jirtay duulaan colaad nimaan ciidan wadan ciilka ma bixee. dhagahaygu waxay maqlayaan Allahu Akbar. war u kaadi ha iga duleelinina aan tuutaha kala baxee. iyo sideedaba goobta dagaalku waa goob cajiib ah. waa goobta uu aadamuhu ku micna beelo. ruuxii eegadan la xurmaynayay ee sharafta lahaa unbaa sida dhagaxa carrada iska dul ooli iska ugu shisheeya waxaa laga maqlayaa rasaas goosgoos ah. malahiga waa firxad naftood hurayaal xamaasadaysan cagta u saareen ama kufri dhaawac lagu gaadhay. dhankan midig marka aad dhowrto waa raashin qulub u daadsan oo kala xidhan. dhanka bidix markaa jalleecdana waxaa kuu muuqanaya madaxyo dhowaan qoyanaa oo haddiiba qalalay. nafti hura caana geelo qufacaya ayaan ku dhaqaaqay oo aan madaxa biyo kaga shubayaa. gabdho iyo wiilal dhallinyaro ah awr ay hoggaaminayeen ayaa xerada soo gelaya. intaan dhagax ku fadhiistay oo aan rikoodhkii aan jeeni qaarsanaa galka ka soo saaray ayaan ku tuurtay gabayga. dharaar weyn intaad ugu gasheen dhaamkii xeradooda dhufaysyada intaan ugu galoon dhamacda leefsiinay. dhangalaasadii lagu dhuftiya saan dhan ugu tuurray dhegtu faraxda goortii aan helay dhimashadoodii bakhtigooda dhoocaar fidigay ee dhabbaha yaallaa. dhurwaagii ka dhiigaa ducayn dhaashintuu heliye warwakaa waraabihii dhergiya dhidiradii baahnaaye. rabbi haydin dhowree libtii waydun dhiciseene dharbaaxada ku wada tuugtu way dhaganuulaadeene. abwaan axmed sheekh cali heelaale naxariistii janna eebbaha ka waraabi. xasuusteeda ayaa si kedis ah dhowr saac gadaal isuma jeertay. waxaan la ilmaynhayaa saaxiibbo halganka iigu wehel ahaa oo shahaadada qaatay. nin dhintay waxunbuu maaganaa. deeqa koordheer yaa ooga dhiga inuu xalana jannada ku booqday shahaadadii ka horraysay oo salaan kadib uu ka soo laaban doono. waan ilmaynayaa anigoo aan u walaacsanayn saaxiibbadaydii u hoyday halkii loo badnaa maadaama ay ka baxeen xeerkii koonka oo dhan. ma oomi doonaan, ma gaajoon doonaan, ma walbahaari doonaan, jiiro kama jeexi doonaan. waan jeclaan lahaa inayna garabkayga ka bixin ama aan raaco. laakiin haddii iyaga hadda la kala dooransiin lahaa maysan oggolaadeen in ay dib ugu soo laabtaan kadeedkii adduunyada. aadamuhu markuu dagaal u qeenshaarto wuxuu ku xisaabtamaa guul iyo guuldarro labadaba. guusha ninka ciidanka ihi waa in jugta soo gaadha ay ka badnaato ta uu cadowgiisa gaadhsiiyey. ciidankiisa dhimasho dhaawac wixii mutay inay ka badato khasaaraha nafeed ee uu cadowgiisa baday. sida ay doontaba hano ahaatee xeerarka aadamaha marka aynu raacayno ciidan kasta raggii ka baxay waa khasaare u gaar ah xataa haddii uu dagaalka ku gacan sarreeyey iyo si kasta uu cadowgiisa jab iyo hoog uuna ka soo waaqsanaynin uu u baday. dhanka caqiidadeenna islaamka markaynu ka dab qaadanayno waxaynu nahay duul aan sinaba ku guuldarraysanaynin oo ka inaga baxaa waxaynu u naqaannaa shahiid casuumaad ka helay allihii boqorka ahaa oo jannu dabaalanaya. yaqiintaas ayaana marnaba uga warwari. waxyaabaha cadowga uu guuldarrada u yaqaano Allahu Akbar. wiilashii dhaawacmay awr ayaannu ku qaadnay. gabdho lafdhabarta halganka u ahaa ayaa badhaxa u sida. naftood horayaashu waxay yidhaahdaan hebel waa aroos. qaylo iyo baroor ayaa yeedhaysa. waa haween dhulka isla dhacaya. waxaa idamaqday kelmadda hooyada 60 jirka ah hoogay oo ba'ayay oo 2 jeer gablamay. bal male war axmaaraduna magaca kaamil miyay la baxaan? nafti hura iliidh niyow hadalka iga daa. annaga oo baalgorayo xidhan oo libin ku gaaraarayna ayaannu goobtii isaga baxnay. afka kaan ka lahayn uurka ayuu alle subxaanahu watacaala uga mahadnaqayaa. geedigu waa dheer yahay meel lagu furina alla unbaa og. culayska qaniimada kasakow markan waa la noogay. jaamaha ayaa ragga qaarkii haya mooraalkaase lagu dugdugayaa. waryaa ka soo bax adigu fiilada oo ku aad unugtaha axmed taray. mahaddeere ayaa amar ku bixiyey iyo qosol la isku daray ayaan ka war helay. gadaashaydana ninkii odayga ahaa ayaa ka leh war miskiinka ha la daayo. mid igu xiga ayaan weyddiiyey maxaa jira. kolkaasuu iigu jawaabay oo miyaadan maqlaynin hiram markuu lahaa war addoon ileen tuute cusub unbuu u baahnaa iyo shibiinkii isna lahaa war ka saara caruus buu ismoodiyey iyo qosol haddana jaanta la wadhay. qadiida weynoo tahay ayaan ku idhi
hire adna maad iilbilowday ayaan ugu koobay maya jaalle ayuu ku jawaabay. kaftankii iyo shactirihii oo aan weli soo afmeermin ayaa taliyihii kooxdannada iyo abaanduulihii gees isula baxeen. waa sidii aannu filaynaye kooxdannadii halkii ayaannu ku hadhnay wixii culays ahaana naftood horayaal kale ayaa naga qaaday. unugtii koowaad oo uu afdhuub dhuunshiinaysii ku jirto wiil hooggii maaraa uu kadhoobka haysto raadkanagii gol ka bidixaysa oo istaraaji ah ayay dabada la galeen oo waa keebla yuurur. nimay hooyadii u ducaysana hortooda ma soo maro kii kalena yeelkadiisa maryuha ku huraan. unugtannadii figta sare ayaannu kornay wiil ku takhasusay qoriga diiradda leh ayaa geed qarari ah noo saaran ilaalo dhan kasta ahna isagaa noogu filan. gabalkii halkiibuu noogu dhacay 2 wiil cawayoon ayaa loo diray 3 kalena qoonda ayay ku maqan yihiin. gaajada waxaa nooga daran qoonka oo waannu jidhiin jabsannahay. hadba waxa ay naftu tabayso riyada iyo suuraysiga qalbiga maxaa isla xidhiidhiya talow mooyi. daqiiqado yar oo aan dhan qalmay waxaan ku riyooday aniga oo shaqlayn aan jeclaa biyo ka cabbayo oo uu lahaan jiray nafti hore aannu saaxiiba ahayn oo dayr hore shahiiday. markaan soo boodayna intaan shayddaanka iska naaray ayaan dhowr ikhlaas u akhriyey. mararka qaar geedahaas hortayda ah gadaashooda waxaan ka maqlaa codkii qalbidiinleyda gabdhihii halganka uu Rabbi subxaanahu wa tacaala ku xoojiyey. in yar kadibna mudutuul ayay isugu kay sawirayaan 3 gabdhood oo mid 2 gamcood falaaso ku wado midna jeerigaan xambaarsan iyo mid bachaaf ah wax ku sida. markay 10 tallaabo ii soo jiraan ayaan ku baraarugaa inay khayaali tahay. allow yaa run ka dhiga. ciidanka kala jabaq ayna maqlin ayaan maqlaa codka dabaysha xagaa ee geedaha caleemaha ka daadinaysa isliska laamaha cida dugaaga iyo heesaha shimbiruhu way ii kala soocan yihiin. uduga manka iyo urta halaqa ayaan iyana iskaga kay qasnayn. waa saacadaha aan waardiga ku jiro uun. waxaa yimid 3dii cawayoonta oo ku maqnaa waxayna wadaan in raashin qabadin ah xogaa sonkor ah iyo 10 biyo ah. wixii la helaba waa allamahadi. casho iyo shaah ayaa lagu tuuray. dhammaajiya intaan haysto dhuub la milixeeyey dhul maxaan xoreeyaa wallaan dhibay naftaydii. tix ay duruufaha halganku ka soo faramaroojiyeen nafti hore Ismaaciil 8dii dambe ayay soo noqdeen wiilashii roondada loo diray. nabadgelya ayay ku warbixiyeen xog cadowna ma aysan keenin. xidigii waa beri ayaa soo muuqday. suuldhabaalihii taliyaha unugta ayaa lagu wada toosay. waaba haddii la jiifay diyaar garooba ayuu raaciyey. rabbi ha aqbalee markaannu salaadii ka gadoonnay ayaannu ku tuurnay qaxwe sonkorta lagu waabiyey. xubno daalay daweeyow diiriyow ninku waayay walle kaama dambeeyo. xigmad carabi ah ayaa ahayd subaxii waxuun leb dhagaxna ha noqdee. kama duwanin hilib geel inaannu ka durduurannay yaana ku daalinini waannu sii daynay. unugtannadii guradaannu qaadnay. unugtii koowaadna laagta dhuuxeeda ayay haysaa. iskuma milanno waannu iska warhaynaa oo sheedaannu ka wada soconnaa. waxaannu isoogu nimid goobtii qorshaysnayd. taliyihii kooxda ayaa khudbadu soo gaabiyey hortannada ka jeediyey. sidii dabciga u ahayd ma wada odhan waxbana kama tegin. qorigiisa oo salka dhulka u yaallay inta fardhaxada iyo murdisada si habboon ugu hantay liifka kor u tuuray oo uu si halhaleela dhexda u qabtay ayuu degta saartay. digtoonow garab saar dab doori joogso ayuu ka cabaaday. codkaas oo soo xasuusiyey xilligii dhuboogii gaardi iyo fagle gaaban ayaannu galnay. xogaa dhidid ah ayaa shax naga soo yidhi. markii aannu furfurannay inta dhowr fallaadhood naloo qaybiyey ayaannu halkii ku kala duullay. dhaawicii goobtii loogu talagalay gaadh cadowna ma arag. dhammaan kooxdannadiina nabadgelya ayaannu isku macal salaamaynay. maahmaah Soomaaliyeed baa ahayd khayr wax kaalama tagee shar u tooghay. hadda way taagan tahay. waannu raad gadannay wax caddayn ahna maanaan reebin. maxayse igu taallaa warbixinta la helayo waxay sheegaysaa in dhinac walba gaaladii ka soo baxday. maxaa xigi doona?